لكن waxaan rabaa dulyar do the right thing to the right time wax sax samee waqtiga sax yihiin ilaah baan kugu dhaashay waqtiga saxda ah prime minister ka ninkii raadinayay oo markii xasan cali khayre la doortay jealousy ama doqonnimada ama waxa weeye dulqaad xumada bil dawladda jirin ku mucaaraday saaxiib kula yahay adiga kullu naas qaladaha salada sameeyay dawladda inta aan ku adiga iyo shacabka ugu faanaya waxaan rabaa inaan tusiyo iyadoo leegu eexinayo ayaan anoo la hadlayo kuwii shalay xilka hayo maanta qaylinaya oo markii ay xilka hayeen lahaa Soomaaliya waxay gaartay guul weyn waxaanu gaarnay horumar markii laga qaaday xilkana le Soomaaliya godeer bay ku dhacday iminka Muqdisho joogtaa dhowr bilood wad joogtaa sidaan la soconana dawladda xilka ma haysto dad badan waxay leeyihiin waa xil suge bal arrinka ka war waxay sharaf bay tahay inaad weydiiso kelmaddaas anigu waxaan ahay maantay aniga iyo adiguba waxaan ka mid nahay inta waxa weeye isbeddelka la helay raggii lafdhabarka u ahaa maanta waxa isbeddelka lagu naaloonaya raggii dhaliyaan ka mid ahayn waxaan xasuustaa qormooyinkaagii aad iyo aad u qaaliga ahaa oo weliba aanan kaamirada horteeda ka sheegayna aan kaala soo hadlay anoo jooga dabadda kuguna hambaliyey oo kugu dhiirigeliyey isbeddelka waxaan ka mid ahayn aniga adiguba intii u dhihi kartay dadka intaan loo dhihi karin marka ay kharaar tahay waxaan marka ku qasbanahay aniga adiguba in aan maaragtay inaan maaragtay guushii dhalatay inaan liminteeda wax ka helno waxaan nahay anigu halkan waxaan ka ahaa mamnuuc waqti dawladdii ka horreysay waxaana ku mutaystay 1 sano iyo 4 bilood markaan joogay intaas aan iyaga la shaqaynayay aan ogaaday wixii jira inaan sheegay abwaan xumaha diidiyo waa yeelku ducadiya in dardaaran dhaxalgala shacabka ugu deeqaa dadku ay ka sugi leeyihiin had qabataa marka hadda wallahi waxaan qabtaa waxaan ahay afayeenka shacabkaan ahay waxaan maalin dhawe joogay ciidamada ayaan xarunta gaashaandhigga 2,000 oo askar ka badan baa ku wacyigelinayay waxaan sameynaa barnaamijka isdhexgalka bulshada waxaan sameeyey waxaan ku jiray wafdigii gobolada 2,000 oo kiiloomitir madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo la marayey waxaan ahay adcaful iimaanka hadda barnaamijkan waxaan intaan aan qabanayno waxay kaga mid tahay oo lafdhabar u tahay wacyigelinta iyo halista shacabka Soomaaliyeed haba meeshii la joogo ma aha siyaasigu in uu yahay xamaali waxaan ahay master international relationship waxaan ahay nin diinta islaamka wax ka yaqaan oo tuxfal waxa loogu dhigay kunka page waxaan yaani markaan isku kaafaaniyo intaasba waxa iiga muhiimsan cilmigu waa aqli la aruuriyay cilmigu waa aqli la isku geeyay marka abwaanimadeeda garashada dadweynaha baraarujinta shala waxay ahayd gaariye iyo xadraawi iyo cabdi maxamed amiin shilba maalin buu leeyahay maanta waa maalinteedii in aan shacabka bulshada wacyigeliso baraarujinta dawladnimada kuwaana waxa weeye xasan sheekh maxamuud iyo raggiisii 1 sano iyo 4 bilood ayaan ku dhex jiray ogaaday arkiifyada ka buuxsaday maalinta markii aan ogaaday arrintu in halka ay marayso markaasaan dibadda u baxay aniyo maxamed ninka la xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud dambaysa hadda marka waxaad u joogtaa in dawladda ku baraajiso dawladnimada in aan dalkayga joogo oo maanta hotel jazeera aniyo dul yar aan wada joogno fursad daabiyaaba ii tahay waxaan u maleynaa xantaada ma moogin aad iyo aad awliyo waxa la yiri mar hadduusan dawladda xil ka haynin dawladda inuu sidaan u amaanayo dawladda biisha oo hotel dajisay oo lacag ka bixisa arrinta maxaa ka jira hal xabba kama jirto aniga iyo maxamed cabdullaahi farmaajo one single penny imasin waxaad adigu isku dirtay waa waxaan kuu sheegaya aniga iyo rag badan oo maanta jooga hotel jazeera waxaan ku joognaa jeebkayga waxaan ku joognaa sharafteeda iyo karaamadayada siyaasigu mar haddii asaga la biilo waxa weeye way u dhimatay waa dhintay hadalkiisu tisxaad ma yeelanayo wuxuu noqonayaa nin la leeyahay marka sharaftu ma aha annagu waxaa laga yaabaa xilka laakiin dadku ugu yiraahdo sidaas waad aragtay Soomaa rag badan oo meelaha ku soo qoro qoladii maaragtay shala saldanada haysay
oo maanta waxa weeye maxaan xuli waayey raggii u xanaaqay xuduudda u goyey iyagoon waxba xeerin shisheeye xan siiyey hay-ada nolosheeda xaashey la fiirsha xaggee u dambaysa rag waxaa jira marka laga qaado xilka yidhaahda waxa weeye teer bay tahay rag dhaliila dowladda ragga la socda way jiraan oo shala iyagoo koorta ugu dhawaaqa dheer ahaa ee ka lulato ku dhawaaqaysa madaxweynayaasha inta looga cararay iyagoo ahaa ayay waxaa leeyihiin faraantiya madaxweynaha ugu jira aasaan ka tag waxa weeye ragga noocaasoo dhaliila noo soo jeediya laakiin ogow dhaliisha marka lagu soo jeedinayo waxay ku tusinaysaa in masajkaada ama fariintaada ay gudubtay oy nacabka gaartay marka anigu xilka waxa weeye xoolaha runtii waxaan ka jecelahay oo aniga iyo inta ila midkaa ay ku fakartaa abwaanku ku fakeraa ilmahaygu markay meel marayaan sida ilmo dul yar markaan ugu tegey fiinland oo kale intaan waxa weeye shumiyey aan kaaga soo wacay fiinland inaan idhaahdo aabba fiican baa idin dhalay oo aan ku xariiriyo mana anaan isarag ani adigu maalintaas ilmo awliyo in inta la yidhaahdo lay shumiyo la yidhaahdo dalka hoteel soomaaliyeed anigu shilin kuma dego diyaaraddana shilin kuma raaco sharafta iyo karaamada iyo laaluush qaadasha la'aanta aan ku helay ayay tahay dowladda waxa weeye anigu anoo la jooga ya oo maantayta laygu xaqlinayo heeskii ugu dambeeyey oon tiriyey ayaa waxay ku tusinaysaa inaanan baayista ahayn dowladdii xasan sheekh waxaa la sheegaa markaad xil ka weysa inaad ugu dhaqaaqda inaad maaragtay barabagando xasan sheekh maxamuud 18 jeer baan u tegey 2 jeer anaa u tegey 16 kalena asagaa ii yeeray isaga oo igala arrimo xasaasiya ee igala tashanaya waxaa maragma doonto ah in dubay iyo uganda buuggan taariikhda soomaaliya dhaxalka waddanka wadaniga uganda anoo ku qoraya ayaa la iigu yimid oo la yidhi waxaad rabto qaada imaaraatiga la iigu yimid waxaa la iigu yimid inta aanan tegin maalintii markaan tegayey heesihii aan ka tiriyey ama aan ku tegey riwaayaddii aragnaya ma maqasheen oo aan yacni tan markii aan tiriyo aan ka tirin doono insha allahu ayaan sameeyey si kasta inta la yeelay indho lay gaduujiya gabgabta iyo boodada goodi beena iyo faan laabtay ma geliyo waxaana nin geesiya guri laygu baadiyo googo iyo malyuumaad laaluush ma geeyo oo ogow layma garan karo aniga oo og nimankaas waxay ahaayeen niman revolutionary ah anoo kula kaftamaya ayaan xasan u tegey waxaan ku idhi waa arkaa xisbi baa tiin 1996 ayaa waxaan galay meesha macbudka yuhuudda markaasaan waxaan rabay inaan ogaado wa ina aayatun lacimra kiristaanka waa loo tagaa waxa weye kaniisaddan geli jiray halalooya markay leeyihiin markaasaan tufaaxa iyo canabka iyo lasoo dhigay ayaan bal fiirahabu dhaqankooda ilaa waxaan live waxa weye nolosha waxa ugu fiican waa experience-ka moogta marka maalinta dambe aan tegey xaruntii masaajidkii yuhuudda ayaan tegey stanford hill meel la yidhaahdo waxaan ku idhi waxaan rabay inaan ogaado bal habka habu dhaqankooda iyo cilmigooda markaasaa waa london markaasaa gacantaa laga geliya xabadka waxaa la yidhi ma gela kartid maxaa dhacay waa 96 marka anigu koofidii yarayd baa inta soo saartay dharkii madoobaa waan soo gatay juushkii yuhuudii waan isku soo okeysiiyey maxaa dhacay don't you see this baan ku yidhi waryaa miyaada kale arkay markaasaa la yidhi yuhuud waa loo dhashaa layskama dhigi karo laguma noqdo iska dhigin xasan baan u tego waxaan ku yidhi oniyo damajadiidka membershipkoodii baan u baahanahay waxaana ka baqayaa in loo dhasho maayn aanba la iska dhigi karine bal bahasha faarax cabdulqaadir iyo doodishe iyo waa membershipka waa ii diideen meel lagu noqon karaa ma jirta marka waxaan ka wadaa markii aan ogaaday nimankaanu inay niman revolutionary yihiin markii aan ogaaday inay sector 25kii raggii qabsaday 69kii maxamed siyaad barre oo kale ay yihiin oo revolutionary-ga ahaa oo ay ka go'an tahay markaan taariikhdooda baaray 2006 xasan sheekh maxamuud iyo faarax cabdulqaadir badankooda saas ma qabaan waa aragtideen hadday baaraan waa ogaanayaan maxamed mursi iyo ninka la yidhaha xasan sheekh maxamuudba waxay ku dhaceen wixii lala lahaa ayay isla haysiiyeen markaasay from president to baalashli waxay rabeen inay control fikirkoodana waxa ku jiray 25 sano 30 sano rest of life kooda inay maaragtay waddanka ay xukumaan aniguna waxaan ahay in aan dalka iyo dadka waxaan ahay madaalaha danta guud ilaasho maatida daryeelo awliya dadweynaha xaqa waa u diriraa xumo waa la diriraa marka waxaan kuu sheegayaa ma aha inaan anigu xilli xoolo ka rabe aniga iyo adiga iyo abwaaniinta soomaaliyeed isbedelkay u hiiliyaan waxayna u hiiliyaan xaqa iyo dadka ku qabtaan marka
maaha anigu inaan wax ka rabo maaha inaan wax ka rabo si kastaa la ilaa luushi tegay haye dawladda hadda soo laabano marka dawladda maanta aan ku jiraa marka kaaga sheekeynayso marka dawladdu hadda waa sanad dirsatay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaantood dhawaan 23 Febraayo ayay u ahayd xukuumadda madaxweynahana otom February aadiya sanadkaas ay shaqaynaysay dabcan waxna way qaladay waxna way wanaajisay nacam maxaa adiga qaladaadkeeda ku tusuwaayeen aad iyo aad waxa weeye aniga oo ku tusay qaladaadka dawladda hore waaye wax isku dhow ma aha wax la keeni karo ma aha waxaan ku faraxsanahay inaad tahay nin historian oo wariyaasha weliba ragga ugu qiimo badan inaad tahay oo qofka intuusan imaan malafkiisa soo akhriya waana sida looga baahaya professionalka dawladdii hore waxaad la xasuusataa cabdi sheekh doon oo prime minister u ahaa hal sano maanta oo kale markuu xasan cali khayre intuu joogo kala joogay hal safar buu u baxay oo Rwanda iyo Burundi iyo wuxuu ku tagay iyo Uganda shaqada waxa weeye from president to Balashli waxay ka socotay madaxtooyada Villa Somali prime minister kuna fulinta iyo waxaas oo dhan ma shaqeyneen dawladani waa dawlad madaxweynaha waxa la socotaa in uu xasan cali khayre loo diray waxa weeye shirkii UN oo America ka dhacay in loo diray European Union in loo diray African Union oo ka dhacay Ethiopia inuu maanta jiro waxa weeye United Emirates Arab iyo Brussels uu sii socdo 75 baalkii maxbuus ayaa maanta Hindiya ka soo degaysa maanta oo Jimcaha ayaa ambaasadoradayada India ay keenaysa kuwa ka horeeya la keeno laga soo siiday Seychelles baa laga soo siiday Ethiopia laga soo siiday waxa laga soo siiday intaas oo qayb inta waa wanaaga bin aadamku waa u sameeysan yahay inuu wanaag iyo xumaan la yimaado marka la fiiriyo kullu naas qaladaha salada waa sameeysan dawladda inta aan ku adiga iyo shacabka ugu faanaya waxaan rabaa inaan tusiyo iyadoo lagu eexinayo ayaan anoo la hadlayo kuwii shalay xilka hayo maanta qaylinaya oo markii ay xilka hayeen lahaa Soomaaliya waxay gaartay guul weyn waxaanu gaarnay horumar markii laga qaaday xilkana le Soomaaliya godeer bay ku dhacday markii waxa weeye ayaga ay xilka waayeen dhaliilaha sheegaya markay ku dhex jireen aan sheegayn ayaa waxaan rabaa adiga iyo ayaga iyo Soomaalida intay daawanaysa inaan ugu faano aniga oo 6 wadan safiir oo extraordinary ah in aan dawladii tan ka horeysay aan kaga soo jeestana aan ku tusaaleynayo raggii ku jiray oo isla haansiinaya in dalka laga qaaday waa heestan ii gelin heestii ugu dambeysay maya waa gartay waxaan rabaa inay iga jawaabto su'aashayda ahayd wanaagii aad hadda shaxday aad noo taxday maxaabiista la soo daayay shaqooyinka la qabtay wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha safarada loo ogolaaday madaxweynaha xukuumadii la siiyay fursadooda madaxweynuhu siiyay oo sida aad ku eedeysay madaxdii hore maxaa qaladaha jira islaada maxaa ku muuqdo qalad inta ay shaqaynayso ilaa banaadku qalad iyo xumaan leeyahay كل الناس في خطأ الإنسان سومالي ذا عادة واحد يقول هذا بقول غلط بقول وانا قف سميه أو هل قلد سميه هل قلد بالله بونية مركب واحد دولة دي دحيح محمد زياد بر وحبرشته فري بقى أقوانته فري بقى واحد إسبتالات فري بقى أفكار سومالي قالوا بقول واحد أركتها لجارسي يوروبيان يونيون كم ما أنت ما هيستان wixii ay qaar kamid ma haystaan wixii aan anagu gaarnay haddana sidaas ay tahay waxa weeye inta xornimadu naga badatay ayaan waxaan raadinaa waxaan jirin marka anigu waxaan ku faanayaa in aan boqolkiiba boqol si dawladdu ay transparency u noqoto waxa jiray 3 bilood ka hor barnaamij marqaatiga nool aan ku sheegay in aan ragga qaarka ku dhaleelay oo isla haysiinayay madaxweynaha aan uga digay madaxweyne shalay waxa ku soo doortay maskax iyo maal baa lagu soo doortay raggii maskaxda banaanka dhigtay raggii maalkana waad soo dhawaysato waxay noqdeen milkiilayaashii madaxweynaha inta aad aragto maanta miidiyaha lagu qorayo maanta laga qorayo aabihii waxaana islooganada waxa weeye haday noqoto tii hore oo la haystayaasha 3 muuqatay 8 qarsoon haday hal gudhigiyada haday noqoto milkiilayaashii madaxweynaha maanta lala ordayo aabihii bixiyaanaha waxa weeye midaan aan hadda ku faanayo waxa oo maansadaan hadda ugu dambeeyay heeskii ugu dambeeyay oo inta aan joogay aan tiriyay oo aan rabay inaan shacabka ugu faano inta kamida waxay ahayd dhaliisha ragga ku dhex jira dawladda aan tusinayo rag baa waxay isla haysiiyeen sidii halkan ku jirtaa marka waa ku jira rag baa inta aanan marin dul yarow rag baaba waxay u haysteen forever inay tahay say rabaana yeelayay xilka markii laga qaadana la yiri madaxweynaha wuxuu ugu yiri 4 sano inta jooga lagu meeriyay madaxweynaha
innagu waxaan nahay hagayaasha shacabka soomaaliyeed madaxweynaha 12 milyan baan gacanta u gelinay aniga iyo adiga iyo abwaaniinta soomaaliha hal abuurada ayaa guusha uu jooga maanta gaarsiiyey hal eeda asagu ma gelin ragga hantida maanta ku faanaya hal eed uma aysan gelin hal godob uma aysan gelin dawladana aan tagi karin shakhsiyaad baan nagu soo weeraray waa qasabada waaba intaan kuu sheegay marka raggaas ayaan waxa weeye rag lamida ayaanu ku sheegaynaa waxaanu ku tusinaynaa in aan la laaluushi karin mar kastabana aan madaxweynuhu waqtigiisa waa dhamaanaya marka mas-uulkii shalay oo heedhe siyaasaddu meerto weeye marnaba xoog laguma doono musuqa iyo qabiilka hamoodin inaad meel sare ku gaarto gumaadka marastii carruurta xiliya ha ku raadin maamul bulshada magaceeda ha dhaamin mustaqbalka ubadkeenna dhowra mayada iyo khilaafka jooji allow dadku noo midoobo macnaha qarannimo dareemo dunida magaceena ha laabay mar kale aan dib u yagleelno madaxda maantay dhegayso waa kaarant waxa weeye kuwa maamulka maanta ku jira madaxda maantay dhegayso marxalad adag baa la gaaray midaan rabay ii sameeya mashxarad iyo sacab ma joogto moraalka shacabku ma fiicna mas-uulkan gudan xilkiisa waxqabad iyo howlkar muujin walle ma matalo dadkayga kursiga marna joogi maayo mar dambe dib u dooran mayno allow dadku noo midoobo macnaha qarannimo dareenno dunida magaceena ha laabay mar kale aan dib u yagleelno marooqsi xil maaha guulle madaxda wakhtigeeda siiya mucaarad wanaagga diida muxaafid wax dhisaa ka fiican midnimo uu istaaga maantay muujiya sama iyo iskaashi dadkaad matashaan u hiisha macnaha qarannimada dhuuxa muranka kala qaybsan daaya muwaadin difaac dalkaaga dhashaya maandeeq aan maalno allow dadku noo midoobo macnaha qarannimo dareenno dunida magaceen ha laabay mar kale aan dib u yagleelno waa heestii ugu dambaysay oo aan ka tiriyay intaan joogay oo aan ku hoga tusaalaynayo kuwii tegey iyo kuwa joogaba lagula dardaarmayo abwaankuna waa inaan marnaba la gadan karin waa inuusan marnaba laati qaad karin daawadayaasha hadday dhegaystaan su-aalo yara kala soo dhexbixi karaan waxaa ka mid ah madaxda wakhtigeeda siiya maxaad adugu u siin weysa madaxda hore wakhtigeeda waxaan u siin waaya 1 sano iyo 4 bilood baan ku jiray waxaan sameeyey 21 barnaamij oo isdhexgalka waxaan ka tiriyey 3 riwaayadood oo isdhexgalka bulshada waxaan gaaray in aan haba yaraatee aan waxa weeye waa markii waxay ahayd kumeelgaarkii laga baxay dawladdii ugu dakhliga badnayd bay ahayd waa markii waxa weeye donoriska iyo deeqbixiyaasha iyo dekadda iyo gobolka banaadir iyo immigrationka wixii laga helo si toos ay gacantooda ugu dhici jirtay dawladda waxay ahayd waxa weeye in ay markaas ay lagu gaaro cabdulaahi allahu naxariistee cabdulaahi yuusuf axmed waxaa laga dhaxlay in ciidan isku dhafa oo soomaaliya oo military uu dhismo waxaa laga dhaxlay in filla soomaaliya lagu soo noqdo ka hor ma aysan jirin 1990 markii la diray ninka la yiraahdo sheekh shariif waxaa laga dhaxlay in doorasho ay ku dhex qabsato waddanka oo waxa weeye doorashooyinkii dabadda lagu sameyn jiray dalka dhexdiisa in lagu qabto xasan sheekh maxamuud waxaa laga sugayay 1 man 1 vote qof iyo hal cod in lagu gaaro waxay noqotay waddankii inuu xisbi qabsado 1 sano iyo 4 bilood ayaanan meelna muqdisho u dhaafin oo weliba duruufaha ugu waaweyn oo ugu adag wiilkaygii 18 jirka allah u naxariistay ee London Royal Hospital ku dhashay hooyadii markay foosha qabatay dul yarow waxa weeye helicopterka London Royal Hospital lagu geeyey helicopterka ee aan ambulance jid la marsiin asagoo oo aan waxa weeye diinta islaamka aan ku barayo gobolada dhexe oo xaraala quraanka ku dhameeyay dhuusa mareemna ku dhigta cilmi fiqiga ayaa waxaan u waayay 150 aan diyaaradda ku soo saaray cagaarshow inta ku dhacay markaasuu 4 bilood ka bacdi mar uu nuglaaday ka bacdi baas waxa weeye 3 galabnimo diyaaradda la soo saaray 3 habeenimana uu ku go'ay ayada oo markaas waxa weeye ninka la yiraahdo oo halkaan uga mahad celinaya baarleex oo ahaa markaa madaxweynaha xubin iyo xeeb ayaan markaas dhowr shir inta isla galnay oo nabadayn aan ka dhex samaynay waxa weeye walaalaha waxa weeye reecadaado iyo bacad weyn oo aan iyo inta hawlo badan kala qabtaan maalmaha kamid waxaan ku wariyay war $150 baan la ahay ma isiin kartaa wiilkii intuusan aad bay xaaladiisu u xuntahay halkaasuu yidhi diyaaraddii centralna 10 qof hadday tahayna soo saar kunkaana xiraale ilaa iyo cadaadaha ku yimaadeen 9 saac galabnimo yimid 9 saac habeenimo ku dhintay intaa xasan sheekh maxamuud waan u tagay talaa lay weydiinayay barnaamijkaas dhaxgalka bulshada la sameeyay guuxa dhalinyarada la sameeyay waligay ma dhihin shilin isii waxay ku tusinaysaa waxa weeye waa inaad ninka ragga adkaysinku ninbaa wuxuu yiri waxaan rabaa definitionka inaan barto raganimada waxay tahay
ii sheeg raganimo waxay tahay wuxuu yidhi niyow anigu caqligaa ma lihiye bal tagoo hebeloo baadiye jooga u tagoo weydii halkiibuu u tegoo ninkii ari la jooga u tego wuxuu yidhi niyow hebel baa isoo diray waxaan rabaa inaad ii sheegto raganimada waxay tahay niyow ma hebel baa ku soo diray haa kuma diri karee laakiin bal ushii uu ariga ku ilaashanaya intuu kalkasha gashadiyo bal soo taag farta fartiisii uu soo taagay fartaa ruug buu yidhi asna tahay anna taadaan ruugaya markay cabaaru rigigu kii qayliya ayuu yidhi wallaahi wuxuu yidhi wax yar haddaad adkaysan lahayd anaa cabaadi lahaa raganimada dhanoo laguu sheegayana waa adkaysi waxa mar walba waxaa laga rabaa qofka revolutionaryga isbeddelka keena ama hagaha ummadda ama abwaanka anigoon intaaba ahayn laakiin waxaa la rabaa gaariyoo jaamacadda ummadda dhigayay macallinka ahaa PhD ahaa iyo xadraawi oo ahaa waxa weeye intay tageen bay jamaad qori qaatay marka waxa weeye anigu 1 sano iyo 4 bilood ayaan dunyar u adkaystay marka intaan waqtigeeda siiyaan weliba waqtigoodii dhaafiyey markaasaan suugaan u sameeyey markaasaan talooyin siiyey 6 iyo 10 jeer xasan sheekh maxamuud asaga iyo waqtiyo adag baana kula tashanay weligay xataa ma dhihin wiilkaygoo sakaraada waxaan ku soo qaatay 1 sano iyo 4 bilood aad sugaysay oo aad u dulqaadanaysay marka maanta 1 sano iyo 4 biloodna wada daba taagneed 1 sano iyo 4 bilood waxaad samaysay barnaamijka marqaatiga nool marka aad maxaad samaysay barnaamijka konton iyo kow qalcadood buu ahaa waxaan u aas-aasay waxaa ku jiray macluumaad badan oo soo arooriyey waxaan rabay shacabka soomaaliyeed siyaasadda ilmo qabadda oo halista ah in aan kaga digo waxaan rabay inaan tusiyo sida ay bahalkii ay dalka u halista u garay hadday noqoto fargelinta shisheeye ma xasuusan tahay aqoonsiga kaarka soomaaliyeed waxaa lagu wakhtigii mursi baasaboorka soomaaliyeed qaahiraa lagu soo samayn jiray waxaan u tegey madaxda markaa joogtay waxaan ku idhi ma raba inaan dal dhan inaan wax ka sheego laakiin waddammada lagu tilmaamo musuq maasuqa ama laaluushka ama khiyaamada masar waa haddaysan laba ahayn waa 3 in aqoonsigaygii loo dhiibo oo waxa weeye kaarkii iyo baasaboorkii soomaaliyeed aqoonsigoodii lagu soo sameeyo miyaadnaan ka fakerayn 12 milyan intay kaarka siiyaan 12 milyan oo oromaa oo aqoonsigii soomaaliyeed wadata in ay waxa weye waddan ku qabsadaan matkaasa kama aamusi karo waxay gaartay in la siiyo dalkayga tilada national security-ga soomaaliya xasan sheekh maxamuud waqtigiisii waxaa lala saxiixday in ay ethoobiya wakiil ka tahay oy ciidamadeeda kontaroolaan oy dhaqaalaha ugu badan oo security-ga lagu bixiya iyagu ay dhiibaan mataasaan ka aamusi karaa dulyar waxaan markhaati ka ahaa iyada oo waxa weeye go-aankii adagoyd oo markay isdirireen sacuudi carabiya eeraan in waxa weeye 50 milyan loo ballan qaaday dawladdii waqtigaa jirtay xataa aan 100 kunna laga siin xiriirkiina loo geeyey eeraan xumaana iyagaya ka waxyaabo badan waxaad ku sheegaysay oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya barnaamijka waxaan keenayay maqal iyo muuqaal baa itusoo itaabsi in aan tan waxtay u dhacday 45 wiil oo xuutiyiinta waxa weeye laga horgeeyay Yaman ku dhimatoo lagu aasay hal maalina 8 bilood oo joogay United Imaaraat Arab oo aan u dhaxeeyay Al-Huda iyo aan siyaasadooda aan u dhaxeeyay oo kamid aha kontanka oday in ay soo doorato 8 qof oo lagala tashaday 8 bilood oo joogay xuutiyiinta wiilasha ku soo dhimatay oo 45 ah oo lagu aasay Imaaraatiga kama aanan aamusi karin ayaan markhaati ka ah marka waa inay dadku maqlaan barnaamijka hadda maxaad u joojisay uma joojine waxaa jira waxaa lagu bilaabay telefishinka Universal TV 5 qalcadood markay inta baxday dhilgariir uu dhacay ee la yaabay aniga madaxtooyada layga soo wacay rag maanta waa dawladdii hore rag maanta jooga ayaa inta la iigu soo dhiibay lacag ayaa la yidhi Westfield waxa weeye shopping centerka ugu weyn London ayaa la yidhi waxaa rabta shaqeey jooji barnaamijka waan diiday waxay noqotay in la dhex galo markaas oo waxa weeye la siiyo laguna laaluusho waxa weeye telefishinkii garabka ii ahaa oo aan tii baarlamaanka xataa bal wax kale iska dhaafay rag mukulaal madoow inta u kala dab qaadeen xataa daljirka dahsoon waa tii baarlamaanku iga hadleen oo lagu laaluushayey waxa weeye baarlamaanku ay ka hadleen oo la yidhi jooji waxaan u imid home cable waxaan la galay madaxdoodaan fadhi la galay London waxaan ku idhi waxaan rabaa barnaamijka markhaatiga nool inaan sii daayo bal akhri 51 qalcadoodba oo shacabka Soomaaliya taabal dhig u dhamo ilaan adiguba saad ii tiri fulay xantiisa ma mooga barnaamijyadaada waxa lagu jecel yahay xaqiiqada looga hadla
home cable waxaa ku jira gabayada waxaa ku jiray ma cabsado codkaygaan shacbiga ugu cadgooyaayo curyaamada aniga u hadlaa aan u noolayna carabkii masaakiintaan iyo culummo duubweyna cadligan kor yeelaa sidii caalim iyo sheekha waayeel caruur iyo haween yaan ku caawimeeyo codkaygaa nugleer uga daran cadowga koodaaya cashar baan u dhigayaa kuwii diinta caasiyey calankaa gaf weyn laga galay iyo culummadiisiiyo ma cimriyo ninkii caasiya ciidda hooyadii cadcad baad u kala goosateen calanka weynaaye ciid waliba mid bay yeelatay oo loo cimaamadeeya cadow bay u kala dhuumataa cabaya dhiigooda waxa weeye cadow bay u kala dhuumataa iyo cadowkiisa cakuya maxaa la isku diray cadowna loo beeray caruur iyo awowgood miyaa ciidan kala raacay bad gabayo noocaasa ku jiray marka waa inaad gabaygii markaa tiriso macnihiisa aad sheegtaa maamul goboleedadan ku dhaliilayey maamul goboleedadii ayay soo dhex gashay home cablena wuxuu yidhi ardee waxaa ka saaro kama saarayaan waxaan ula tegey Somali Journal oo markaa jiray waa la socotaa waxaan kuu sheegayaa shacabka Soomaaliyeed intay kacaan dul yarow haddaan barnaamijkaas ay home cable naga yeesho anigu I'm not here to please nobody anigu dawladda inaan maqsuud ka dhigo uma joogo anigu waxaan u joogaa in aan kiciyo shacabka kagana digo waxa u daran aan isku keeno marsabad iyo mooyaale iyo jigjiga iyo waxa weeye iyo dirir dhabe inta lagu mashquulinayo maanta Jazeera Hotel baan joognaa waxa isku haysta aeroboortka Muqdisho Mabay iyo Bakool buu ka tirsan yahay mise waxa weeye maamulka gobolka Banaadir buu ka tirsan yahay Sheekh Shariif waxa isku haysta ninka la yiraahdo engineer Yariisu taas gobolka Banaadir Shariif Abdusoor afwan Shariif Xasan madaxweynaha Bay iyo Bakool iyo waxa isku haysta meeyarkayga oo halkan ka salaamayo walaalkay saaxiibka engineer Yariisu Cabdiraxmaan engineer Yariisu ma waxay hoos imaanaysaa Banaadir mise waxay tagaysaa Bay iyo Bakool siyaasadda noocaas anigu waxaan rabaa waxay adigu diyaar ma u tahay inaad si sax ah dhibaatada Soomaaliya guud ahaan ka jirta inaad uga hadasho aad iyo aad Soomaali marka aan taadii kugu sii jawaabe Somali Journal baan ula tegey waxa ku jira marka heeso hayay Soomaaliya kaca hayay dalkii halis buu galay dulhabar qabayimi waxba aan hambaynay Soomaaliya akhi fillahi zakada wareesaha deyn maayo waa ridamka ruuxaan leeyahay Soomaalida iidaya akhi lama ogola nashiidada carabta wadeerayaan I have no platform to practice aniga haddaad ii ballan qaado maanta marka dul yaro waxaan ku ballan qaadayaa inay ooyaan oo bishii laba jeer intaan soo dayno fiir haddaan ku dhameeyo laba asbuuc kasta ballan baan kaaga qaaday in aan kaga ilmaysiyo shacabka Soomaaliyeed laba hees iyo laba gabay iyo macluumaadkii meesha laga rabaa adigana barnaamijkaas oo kale marka la sameeyo dadka hadda waxay yiraahdaan marqaatiga nool sababta u sameysay waliyo muraadkiisu ku qonsadaa waa inuu san noqon barnaamij dan gaar ka shaqeynaya waa inuu noqdaa mid dan caam ka shaqeynaya waxaan ku sheegay ballan qaadaysa adigu waxaan ku ballan sheegayaa horta abwaanka lama yiraahdo waxaas maxaa kula yihiin waxa la yiraahdaa maxaa ka tiri waxay ku tusinaysaa anigu xil u dhaafay dheef iyo macaan baadhan la dhigay dhulka ugu hiliya dhawaaq iyo dhamaca rasaaseed anigu xil iyo xoolaba no one can bribe me London markii aan ka diiday xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud in ay bribe garayso laaluusho waxay noqotay inay gacan la ila tago oo masaajidka Shafar Bush West London anoo hameen ka soo baxay cishaa ku soo tukaday laba toorood lagu dhufto Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah ha u naxariistay 6 jeer ayaa la hal maalin baa 6 jeer la gacan qaaday laba kamida waxa weeye ano unconscious oo ay boolisku leeyeen are you all right you all right mate ayaan indhaha kala qaaday dul yar dalkan waan u soo dagaalamay adiga mid baa la idinka rabaa adinka oo aan ku shaqaynayn afkaarta Somaliland iyo maamul goboleedada oo aan blues gareyn aan ayaga raali gelinayn barnaamijkan waa run dhaqan waxa la idinka rabaa inaan la idinna laaluushin aan iga joojin home cable TV madax banaan oo private ma aha TV cid gaara ama koox gaara ama dawlad gaar ah taas horta ma sheega maanta dhan anoo awliyaa maskiinaad galeysay marka waa inaad markaaga macnaha ku cadeeya markaaga waxa rabaa inaad u adkaysato ma waa ku cadeeya aniga cadeynaya laba jeer aan barnaamijkan bilaabay mar Xasan Sheekh Maxamuud bay ahayd telefishinka Universal TV ayaanu ku aan iskugu nibo United Emirates Arab konton iyo kowdaba ayaan ku tusiyay inay soo daayaan shan markuu baxay ayaa iga leexday aan ku dhameeyo markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimidna sidoo kale ayagoo dawladda ku dhisayay laba jeer ii sii daayeen
danahooda markay ka gaareenna way iga joojiyeen Hadda anagu cidna looma qarinayo Haddaan ku bal- anigu waxaan ahay Tan the waa ka victim of the ballanay. victims Tan waa ka ballanay. adinka Annagaa diyaar u ah. markaan galo maamul goboleedada anigu ilaa waan Waa ku oga sii daynaynaa. Soomaali Journal iyo telefishinada kale oo wadaadadu Waa samaysteen ku sii daynaynaa. nashiidooyinka carabtana waa sii daayeen heesaha Soomaalidana way qariyaan Waa ku sii- suugaanteedii waa ku sii daynaynaa. adinkuna ciladiinu waxay tahay maamul goboleedada Waa ku- in la gala ma ogolidin Waa ku sii daynaynaa. adinku ay iga waa joojinin ku sii daynaynaa Waayo. su-aal baan rabaa inaan ku weydiiye marka haye sidee u aragtaa mucaaradka maanta dowladda madaxweyne farmaajo mucaaradka ku ah dadka mucaaradka ku ah wixii maanta laga bilaabo waa loo ogol yahay mucaaradka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre in la dhaliilo mucaaradkuna waa Maxaa kala jeedaa maanta marka laga bilaabo maxaa ka jeedaa? hal sano iyo waxay joogaan iyo 18 casho Haye. ayuu maxamed cabdulaahi farmaajo jooga Haye. hal sano iyo 18 cashuu jooga Haye. maantay dhaliishu way noqon kartaa inkastoo hal sano dowladnimada iyo hanaanka qarannimo inta uu qofku meesha kala baraya aysan waxba ku ahayn haddana waa wax loo ogol yahay inay waxa weeye ay taabsiiyaan oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ay noqoto laakiin haddii la fiiriyo mucaaradkii shalay jiray oo hadda xilliga fursada la siiyey hadda wixii ka dambeeya waa of course dowladda waa in la dhaliilaa dowladdu wax aniga dadku waxay leeyihin qofay waxaan rabaan malagi gelin inaan anigu aan usha ku boobo weli waqtigiisiiba gaarin bay rabaan inaan gud kala gaaro anigu waxaan rabaa dhaliishaydu inay wax taajibuloo la taaban kara ay noqoto ninka la yidhaahdo dulyarow waxaan rabaa shalay tanaa dhacay tanaa jirtay tanaa waxay sida boorogaraamyadaadu ay yihiin oo kale markaan gabayga tiriyo gaariya wuxuu yidhi gabay haddaad inta tiriso odayaasha iyo islaamuhu aysan ku dhihin al afkaygu kala baxay hooyo waxa weeye gabay ma aha 1982 ayuu tiriyey ayaan baa iman doonta afrikaan madmadoowiyo orgaba ay taliyaano afkaya cadadaayo markaad ka soo degto xalane ee aad aragto dowladihii shalay aan annagu xornimada aan gaarsiinay oo maanta annaga na waardiyeynaya ee maanta waxay rabaan nagu samaynaya miyuuna kugu soo dhicin gabayga daraar baa imaan doonta mujrim oo magad madooba muslim sheeganaya agablaay hambadaada isisii yaa salaam inkastoonan gabay qabad ahayn minbarkii markay tahay in the middle of night oo dadka u hurdo ayaan isku daweeyaa ereyadaas abwaanku waa inuu waxa weeye waxaan dhicin afku soo ma aha kii abwaan gabaya tiriyo aayaha ka taliyo fanka ila xirkiisa iyo hees lala ilmeeyo u akhriya dadweynaha murta aayatiin liya intuu garanin maatidu u iftiishan shacabka uga diga dadweynaha aafooyinkii hore alhumada guumaystu imika uu ku waday ilma qabataha lisiyo waxay bala alkumaan kan iftiinsho weeyaan oraah nagu hogaamiya anaa aniguna iri marka waxaa la rabaa qofku in aan waad arki doontiin waanad ogaan doontiin dhaliilo badan oon anigu dowladda maanta u hayaa jirta laakiin waxaan rabaa dulyar do the right thing to the right time wax saxa samee waqtigay sax yihiin ilaah baan kugu dhaashay prime ministerka ninkii raadinayay oo markii xasan cali khayre la doortay jealasiga ama doqonnimada ama waxa weeye dulqaad xumada bil dowladdii jirin ku mucaaraday waa doqonnimo tan u liidata sababtu tahay dadku waxay fiirinayaan dadkani people of boundary those who love the war markii 1835kii uu soo galay saamiyihii ugu horreeyey ingiriisku wuxuu sheegay dal aan beenta la sheegin dal waxa weeye gabya ah dal waxa weeye aan tuugsan dal culture iyo dhaqan leh dadka Soomaaliya ugu caqli badan oo muslim iyo Soomaaliya waa dalka adduunka ugu caqli badan muslim iyo gaalana ay iskugu tageen marka ninka raba waxa asaga u khaaska inuu shacabkii saaska ah oo caqliga adag inta suugaan laga tiriyay inta adigu qormaad samaysay ninka raba inuu intuu qaato uu fuulgareeyo shacabka dantiisa khaaska waxa weeye uu raba inuu ku hagto siyaasadda waxa weeye uu asagu uu doonayo raba inuu dadka ka gado waa doqonnimo ninka ilowsan qarxayada dhacaya duruufta lagu jiro maanta Soomaaliya sida lagu haluugu dhagan yahay oo ayadoo international community-ga la sheegayo beesha laxaada rabo waxa weeye kule Soomaaliya waa in la dhisaa waa in ciidamo loo dhisaa waa inay midowda waa in la soo celiya nana kala qaybinayo in baa wargaraynaya waxa weeye maamul goboleedka iyo federalismka iyo kala goynta waxa waxaynaya marka isuga inta yara aan dhamaysto aan biyo dhaca warka aan gaaro ayagoo la mid ah nin baa jiray dulyarow marka dhakhtar buu ahaa nin marka caqli badan baa loo geeyey wuxuu rabo dadku daynjir waa markii burburku ay dhaceen moogta marka uu u tago TB baa hayso dawada ayaa yaray TB-da
marka ninkii qufacay laa loo tegey meeshii la rabay inuu yidhaahdo habeenkii ma dhididaa see ma qufacaagu see yahay malax adag ma dhigtaa ayuu inta saa u fiirshay buu yidhi ninkaani wuxuu u baahan yahay in timir inta lafta laga bixiyo oo la shiido oo subag lagu daro oo maro lagu xiro kor ha looga dhayo kii caqliga badnaa saas u fiirshay wuxuu yidhi dhegaysta ninkaanu wax fiican buu ii sheegay laakiin wixii aan ku raysan lahay iima sheegine kor lagu dhaymayo waa cunayaa buu yidhi ii sameeye si TVdu iga tagto oo aan ugu bogsoodo annaga adduunku waa nala col international communityna darna ma wadaan kor bay naga dhalayaan hoosna way naga cunayaan marka ninka day kuwa la soo dirsanayo ee aad u jeedo oo maanta sida dawladaha carabtoo kale annaga jiritaanka iyaga baabi'inaya ee annaga raba inay waxa weeye macmiilka iyagii aad u jeeday sirdoonka ninkii ugu weynaa sacuudi carabiya inuu leeyahay soomaaliya ha lagu daro etoobiya ha la isku daro aad u jeedo united imaarad carab ay baddeeda wada iibsanayso aad u jeedo oo gumaysaha cusub ay tahay ninka ay soo dirsanayaan oo on behalf of them ku hadlayo afkoodu waxaa lama dhihi karo muxaafid healthia ma aha waa muxaafid macmiil ah oo la soo dirsay oo doqon ah maanta marka aan ku leeyahay marka maanta kale waxaa laga sheegi karaa dawladdu waxay gaartay waxay dhammaysatay 12 bilood waxa xaq loo leeyahay in wax laga sheego laakiin marka la sheegayo lafteeda waa in ABCD ay ahaataa qodobka 1 iyo 2 waxa weeye in la is aqoonsado difference waa beauty of life kala duwanaansho waa qurux celina hadalka wax ka codsanaa horta inaadan fikirka sida adiga aad rabto inaad dadka aad fikirkaaga lagugu daayo oo aan lagugu dhaleecayn adiguna qofka kaleeto xorriyadiisa u daa fikirkiisana u daa hana ku tilmaamin horta doqon ereyadaas inaad adeegsatana waa kaaga cudur daaraa waxaan rabaa inaan marka ku weydiiyo waraysigan markaan eri waan qaadayaa Pastor Oliyan ka qaadayaa waxaan dhigay page-kayga Facebook-ga dad badan waxay yiraahdeen adigu ma waraysanay sida asaga ku waraysan doona haddana waxaad moodaa inaad warka iga boobaysa marka waxaan rabaa inaan waxaan cadaynayaa midaan rabaa inaan ku weydiiyo dekreetada madaxweynuhu waa dhacdaa ama waa laga dhintaa ama way dhammaataa waqtigeedu laakiin abwaanka dekreetadiisa ma dhammaato marka iisoo in yar oo muhiimaan rabaa inaan kuwii waxaa kuu sheegay aan u sheego dul yar waxaan caddaynayaa oo aan maanta siinayaa dekreetada wariyanimada qarniga maanta la joogo ragga ugu cadcad inay tahay weliba aniga sharaf waxay ii tahay cabdullaahi xaaji baa BBC-da iga waraystay anigoon isku ka ammaanayn wuxuu yidhi 50 sano ayaan waraysanayay xayla salaase iyo maxamed siyaad barre weli nin ila kaamidu ma jirin axmed xasan cuuka ay waraystay cabdisalaan herari baa raggii ugu cuslaadaa waraystay allah wada naxariistay intii dhibatay inta noolna madaxooda allah noo raajiyo dekreetada aan maanta siinayo dul yar waxay tahay in uu yahay nin borogaraamkiisi qan nood inaan kugu bribe garaynayo barahayga facebookga page-ka aan ku leeyahay ayaan waxaan soo dhigi jiray qormooyinkaaga iyo hadallada aad muqdisho uga hadasho marka kuma yaqaaniin anigaa ku baraya dekreetada madaxweynuhuna waa dhacdaa laakiin midda abwaanku ma dhacdo ilmahaaga ayay berri sharaf u tahay weliba waxaan ku kabnaa annagu waxa weeye ama sugaan aan dhicin oo sidii aad gaariye u sheegayso oo dhintay allah naxariiste oo aad gabaygiisa u sheegayso kale ayaan qofka ku ammaanaa ama ku dhalinaa dalka wuxuu u dhimaya dadka tayda marka anoo kaa dhacaya saad u sheegtay waxaan rabaa sidii gaariye u sheegay kuwa sheeganaya inay mucaarad yihiin iyadoon bil jirin dawladdu inay xaqiiqo tahay shacabku inay markhaati ku aadaan waan kaa xoogayaa maasadaanan ka tiriyo wax yar la dhegeyso waa ka xumahay sii weydiin marka su'aal ka faa'iideyso dadku marka waxay soo yiraahdeen qaarkood waxay yiraahdeen ninkan waa nin aftahanimada xaggu ka dhaxla iyo ka dhaxla aftahanimada marka su'aasha sarraba inaan ku weydiiyo intaad gabayga raadinayso aad iyo aad anigu ma aaminsanayn inaan ahay aftahan waxaan aaminsanahay nin maskiina oo tawaaduc badan in aan ahay